han iyo himilo weyn oo warbaahineed kan inuu ku guuleysano rajaynayay malay marka dhalinyartan tirada ugu weynaysan waxa weeyaan saxaafadda soo barta ruuriskeeda iyo sharciyadeeda kadibna uu si sharaf leh ugu shaqeysto mihnada saxaafadeed uu bartay tacabka maanta naga shadaan waa mid aan ugu qaban qalankayga ugu adeegi doono bulshadayda ugu adeegi doono waa wax iyaga ku soo noqonay warbaahintu waxay u baahan tahay tireerino hor leh iyo in aqoontooda saxaafadeed kor loo qaado in wadan jacayl waxa hadeer garabkayga taagan gudoomiyaha ururka daayirta saxaafadda ee Runsheeg Journalist Association loona soo gaabiyo RJA on inshallah na siin doona warbixin guud oo ku saabsan ururka soo dhow mudane gudoomiye waxaad siin doontaa hadii Ilaahay yiraahdo warbixin faahfaahsan oo ku saabsan ururka oo guud salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanaagsan oo wacan galabnimasan masrax TV deeman Ismaaciil Galbeedi iyo waliba sidoo kale saxafiga ka qiimaha badan ee muuqaalkan inoo qabanay inta dabadeed aad baa mahadsantahay si weyn ku soo dhaweynaya mar kale Team Runsheeg Journalist Association loo soo gaabiyo RJA ururka mihnadleyda warbaahinta ee daayirta ah barkulan ee warbaahin saaxad saxaafadeed oo daayir si kooban hadaan kugu qeexan noqonaya saaxad saxaafadeed oo samaha sumad u ah RJA si kala hadaan u dhigo oo codlaawayaasha codkooga sidoo kale RJA ama Runsheeg Journalist Association waxayaan urur saxafiyiin ah kuwaas oo u taagan una heelan doorka saxaafadda mihnadleyda warbaahinta oo hadda saxaafadii ka sii baxaysa soo nooleynteedii iyo loo soo kala qaabka ugu haboon ee bulshada xog iyo macluumaad ku filan loo gaarsiin lahaa in door iyo kaalin ka qaadato marka tiimkaas ayaanu nahay aadna waan kugu soo dhaweynaya mar kale wad mahadsantahay gudoomiye kulan bad maanta lahaydeen bal kulankaasi wuxuu daaranaa maanta waxoogaa isagana naga sii faahfaahin aad baa mahadsantahay kulankanagu maanta waxa uu daaranaa inaanu dhalinyarada la wadaagno oo aanu aqoontooda iyo ogaalkooda aanu wax ku biirino kuwaas oo ka hadlaya dhanka warbaahinta iminka saxaafaddu way qiimo beeshay anagu ma doonay inaanu saxaafadaas inaanu qiimaheeda aanu sii dilno laakiin inaanu soo noolayno anagoo daayir ah aad qiyaas kala sidreemi karayso inaanu aqoontooda kor aanu qaadno dhalinyarada beacheska la saantooda oo aanay ka muuqan akhlaaqiyadka warbaahinimo inaanu ku tababarno aanu ku dhisno aanu ku horumarino ku tayino ku xirfadeyno runtii anagana waa noo sharaf noo karaamo iyagana waa u aqoon kororsi iyo waliba sidoo kale ogaalkooga oo kordha misana beera oo in badan aanu rajaynay in wax badan ay ka bedeli doonto malay gudoomiye aad baad mahadsantahay maadaama aad tahay wiil daayir soo kale ay kugula boohobeen ururkaagan dhalinyar daayir oo ka shaqeynaysa ama ku hawlan sidii ay saxaafadda ugu soo kordhin lahaayeen door aad weyn oo qiimo leh bulshada dhexdeeda bal ka waran maxaad ku faraysaa dhalinyartayguna xiiseynay inay bartaan saxaafadda deemanay waa mahadsantahay waxa xusid mudan tiimka warbaahinta aan anigu hadda hoggaanka aanu hayo ee ila shaqeeya inay yihiin tiim daayir furfurcoon hawlkar ah taas lafsad ahaanteeda han iyo himilo weyn oo warbaahineed ay inooga dhex muuqatan ka dhaxalkan inuu ku guuleysano rajaynayay malay mahadsanid waxa hadda garabkayga taagan yaduna waa agaasimaha ururka mihnadleyda warbaahinta ee saxaafadeed loona soo gaabiyo RJA Runsheeg Journalist Association soo dhawow wariye Sumeeye halgan aad baan ku soo dhaweynayaa bal ka waran maanta waxa jiray barnaamij kaasoo ka ururahan soo qaban qaabiseen bal muxuu maanta daarna barnaamijkaasi deemana aad iyo aad baan ku salaamaya aadna wad mahadsantahay barnaamijka maanta ay soo qaban qaabiyeen ururka saxafiyiinta RJA waxa barnaamijka soo qaban qaabiyeen kaasoo daarnaa muhiimaddu ay leedahay saxaafaddu iyo doorka ay ku leedahay iyo muhiimadda sida loo dhisi lahaa saxaafad waxtar leh oo muhiimad sare ku leh Soomaaliland iyo geeyiga Soomaalidaba kule loo soo saari lahaa Sumeeya waxa jira dhalinyar fara badan oo habliye inamaba leh oo xiiseynaysa in saxaafadda bartaan ama soo galaan maxaad fariin aad u diraysaa dhalinyartaas dhalinyarta waan soo dhaweynaa waan ku bogaadinayaa saxaafaddu waa meel aan la kala xigin lagana kala lahayn waana meel ballaaran waana weyn qofka saxaafad baranaya waanu ka duwan yahay bulshadii kale wuxuu kaga duwan yahay xilfad ahaan aqoon ahaan dhis ahaan buu kaga duwan yahay waa qof bulshadiisu adeegayo qarankiisu adeegayo hawl qaran haya marka waan soo dhaweynayaa waan maantana waxa lagu jiraa qarnigii waxaan ku jirnaa tiknoolajiyada ee casriga qarnigii 12 waxaan leenahay ku soo dhawaada wana soo dhaweynaa dhalinyarada laamaha ay khusayso ay kamid tahay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta maxaad ka urahan fariinaad halkan uga diri lahayd anoo maanta uga faa'iideysanaya jaaniskan waxaan fariin halkan u marnayaa wasaaradda faafinta waxaan u marnayaa oo gaar ahaan ururka ee khusaysa inay noo qabtaan tababar khuseeyo xagga saxaafadda gaar ahaan ururkayga
saynu ugu kacana sal ugu sii kacno aan meel halkan ka fiican maanta aan taaganahay aan hore uga sii marno oo aan sidoo kale waxa iyagu maanta na geliyeen tacabka ay maanta na gashadaan waa mid aan ugu qabanno qarankayga ugu adeegi doono bulshadayda ugu adeegi doono waa wax iyagu ku soo noqonay waxaan meel la tagayno maaha marka jaanidka waxaan uga faa'iideynaa hadduu codkaygaasi soo gaadho madaxda qaranka ulkayga RGA loo soo gaabiyo saxafiyiinta da'da yar leh inay gacan qabtaan inay maanta wax gashtaan anaguna biltoole waxayna gashtaan soo celina baaqaygaas inuu gaari doono ma rajeynaa insha Allah hayo walaal maasanta soo dhawow saxafi Yaxye daaman aad iyo aad baan wadaal u mahadsan tahay waa dhawahay inta meel ka soo durka maanta waxaa jiray kulan aad muhiim ah oo bartan aad ku qabateen kulankiinaas maanta muxuu daaranaa Yaxyo college hore waa sidii loo heli lahaa saxaafad dhalinyaro oo tayeysan kuwaas oo dhan waliba ka dhisan aqoonyahan kala duwan ayaa tababarka bixinayay ka urur ahaan waan soo agaasinay warbaahintu waxay u baahan tahay tireerino hor leh iyo in aqoontooda saxaafadeed kor loo qaado in wadan jacayl dal jacayl iyo dad jacayl lagu beero in mar kasta iyo meel kastoo ay joogaan la dhiso la dhiirigeliyo saxaafadda waxaan u arkaa inay yihiin tiir ka mid a tiirarka ugu muhiimsan ugu halbowleysan ee qarankani waana isha bulshada waa muraayada dalkan iyo dadkan baa iska daawan lahaayeen iska dhex arki lahaayeen sidaasi darteed waxaa habboon markaste in kor loo qaado aqoontooda tababar la siiyo anaguna ka urur taasi ayaanu ka duulaynay taasaan tababarka u samaynay taasi ayaanu qabanay ugu dambeyn Yaxye oo maxay fariinta u dirayso dhalinyarada doonaysa inay kusoo biiraan saaxadda saxaafadda dhalinyarada waxaan u dirayaa waan leeyahay saxaafadda lama kala lehe waa lagu soo kala horreeyay horta soo dhawaada oo marka labaad si sharaf leh weedab loo akhlaaq leh intaad u soo gashaan wax qurux badan gudbiya waxaa jira qof tiktoker ama youtuber oo ama intuu reer iska caya ama qof mansab iyo maamuus leh intuu soo xagxagta dabadeedna magac koobiya samaysanayo odhanayo weriyaan ahayo wuxuu doona soo akhriya kaasoo kale looma baahna markaan leeyahay si edab loogu soo biira kaasoo kale aan uga jeeda cidda ay qusayso wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Somaliland iyana waxaan ugu baaqi lahaa inay dhalinyarada saxafiyiinta tababaro dheeraada ay u samayso maxadka tababarka saxafiyiinta loo furo lagu carbiyo lagu layliyo saxafiyiinta la baray inay yihiin xubinta ugu muhiimsan ee bulshada aqoontoodana kor loo qaado intaas ayaan ku dari lahaa waana mahadsantahay hadda waxaa garabkayga taagan mid ka mid ah xubnaha ururka Runsheeg Journalist Association loona soo gaabiyo RGA waa saxafi sare waxa loo yiraahdaa Ridwaan Jufo soo dhaw Ridwaan dheemar Ismaaciil Muuse walaalaad baad mahadsantahay waan soo dhaweynayaa waan dhawayn bal Ridwaan oo maanta waxaan ku weydiinayaa kulan baahan ka jiray muhiim ah bal kulankaas maanta muxuu daarnaa ka urur ahaan waa run oo maanta halkan waxaan ku qabanay kulan ballaaran oo maxay soo qaban qaabisay maxay ururka dhalinyarada ee Runsheeg Journalist Association kulankaasi wuxuu daaranaa maxay waxa khibrad wadaag markaan leeyahay waxaan soo casuunay laba shakhsi oo saxaafadda in muddo ku jiray isla markaasina waxa kale meesha nagu casuunaa maxay dhalinyarta hadda saxaafadda xiiseynaysa inay ku soo biirto kadib waxaan ugu talagalnay in baan dhalinyartaasi bal laga siiyo wax warbixina qaabka maxay saxaafaddu ay u shaqeyso saxaafaddu shaqada ay qabato halkay qaranka kaga jirto marka kulankaasi intaas u buudaarana waxaad ii sheegtay Ridwaan waa maxay fariinta aad u dirayso da'yar waxa jira maanta danaynaya ama doonaya jecel inay bartaan saxaafadda bal fariin maxaa loo wadaagi lahaa iyaga dhalinyarada saxaafadda Soomaaliland xiiseynaysa inay ku soo biirto amba ku hadda ku soo biiraya fariinta la wadaagaya waxa tahay horta imika wax haysataan waqti aad u fiican oo qofku si fudud u saxaafadda ugu soo biiri karo oo dunidu deeymka technology bay noqotay waxa la yiraahdaa sanadka qarniga ay ku jirnaa waa qarnigii technology-yada kaasa markaa fudaydinaya inuu qofkii si fiican maxay saxaafadda ugu soo biiri karo oo berigi hore caqabado badan ayaa qofka la kulmi jiray markuu saxaafadda maxay ku soo biirayo fariinta markaa u diray waxay tahay maxay saxaafadda qof kasta ku soo biiraya waan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay ku soo dhawaada saxaafadda marka labaadna waxaan u soo jeedinayaa saxaafaddu qofku inuu page furto oo wuxuu doonay soo gudbiin ma saxaafaddu waxay leedahay itigis iyo anshax bay leedahay marka waxaan kula talinayaa qofka saxaafadda ku soo biiray markuu waad inuu saxaafadda soo barto kadibna uu si sharaf leh ugu shaqeysto mihnada saxaafadeed uu bartay way waa xirfad way ugu waraada saxaafadda talent baan leeyahay talentigu xagga Ilaahay ka yimaada laakiin itigiska waa inaad barataa way qof itigiska saxaafadda kuma soo dhalan inuu barto weeyaan marka dhalinyartan tirada ugu weynaysan wax weeyaan saxaafadda soo barta ruuriskeeda iyo sharciyadeeda markaad soo gashaana marka wixii wadanka dhibaatada u keenaya amba dadka isku diraya ama maxay saameynaya maxay in amniga ay khalkhaliyaan
waxyaalahaasina dee adiga faa'iido baa kaa soo gashay inaad danta bulshada uga tanaasulo u baahan yahay saxafiyiina wadaniyad hay'aday qeyre wadaniyad u yeesho marka intaas saxaafadda maxay dhalinta soo galaysa kula talinaya idiguna aad baad u mahadsantihiin